صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد السنهاجي: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. weli waxaanu ku guda jirnaa baabkii asaaska u ahaa fahamka naxwaha, baabkaasoo ahaa baabu macrifati calaamaati اlicraab. waxaan hore u soo sheegnay baabkaas inuu asaas u yahay barashada cilmiga naxwaha. qofka baabkan fahmi waaya inay ka dhigan tahay inuusan naxwihii weli uusan u furmin. qofkii baabkan fahma oo juhdi iyo wakhti siiya siduu baabkan ku fahmi lahaana waxay ka dhigan tahay isagoo naxwihii guud ahaanba fahmay. maxaa yeelay naxwaha masaa'ilkiisa oo dhan iyo sida loola tacaamulayo naxwaha dhammaan waxaa lagu aruuriyey baabu macrifati calaamaati اlicraab. idan marka waxaanu soo qaadannay ereyga marka la godayo waxaa lagu godaa afar shay: aلdamatu wاlwaawu wاlأlif wاnnuun. afartaas waxaa asal u ah damada ayaanu soo qaadannay. damada waxaa lagu godaa afar erey: الاسم المفرد وجمع تكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. afartaas luغة الcarabiya meeshii aad ku aragtid waxaanu soo marnay in lagu godaayo الdama. waxaan qaadanaynaa marka mawaadicda waawda lagu godi karo ama ereyada lagu godi karo waawda. imise meelood ama imisa shay ayaa waaw lagu godi karaa oo godkoodii bedela dama. intii damada ama godka caadiga aakhirka laga saari lahaa ayaa damadii beddelkeedii waxaa u noqonaya waaw. waawdaasi waxay beddel ka tahay damadii. imise ayaa marka la dhihi karaa wa calaamatu rafcihi alwaaw. calaamadda aan ku godnay waa waaw. imise ayaa la dhihi karaa? sheekha wuxuu ku yidhi raximah اllahu tacaala: wa ama alwaawu fatakunu calaamatan. waawdu waxay calaamo u ahaataa lirafci godka fii mowdicayni, laba meelood bis. laba meelood un baad dhihi kartaa luga alcarabiya wa calaamatu rafcihi alwaaw. shayga ugu horeeya fii jamci اlmudakar, mudakerka jamciisii. almudakar waxaa weye waa ragga alimi ee nabad galay. jamaca ragga xaalatu rafca markuu joogo, xaalatu rafca maxaan ula jeednaa? horey ayaan usoo qeexnay ulajeeddada laga leeyahay. waa markii ereygu faacil noqdo ama mubtada uu noqdo ama khabar uu noqdo ama ismu kaana uu noqdo ama ismu khabaru inna uu noqdo. mawaadicda uun ay waajib tahay isimka in la godo. meelo in la godo ay waajib tahay markuu jamcu mudakar saalim istaago waxaanu leenahay wa calaamatu rafcihi alwaaw. idan marka muxuu yahay jamcu mudakar saalim sidiis? maa huwa aljamcu mudakar asaalim? muxuu yahay horta jamcan la leeyahay waawaa lagu godaa ee jamcu mudakar asaalim? jamcu mudakar asaalim waxaa la yidhaha maa jumica biwaawin wa nuunin fii xaalati rafc وyاء ونuun في xaalatay النصب والjr. maa jumica bwaawi وnuun waa erey kasta ama isim kasta oo marka la jamcinayo oo jamaaco laga dhigayo lagu jamciyo waaw iyo nuun fii xaalaة الrafci. maa jumica bwaawi وnuuni fii xaalaة الrafci. xaalad la godo markuu taagan yahay oo markuu faacil noqdo ama naayulfaacil uu noqdo
xaalad la godo markuu taagan yahay waxaa lagu jamciyaa waaw iyo nuun tusaale ahaan mu'min nin muumina markaan jamcinayno xaalatu rafcana uu joogo waxaan ku jamcinaynaa waaw iyo nuunaan la xiriirinaynaa marka wuxuu noo noqonaa jamcu lmudakar asaalim almu'minuunaan len sida qad aflaxa almu'minuuna muslim markaan jamcinayno waaw iyo nuun ayaan la xiriirinaynaa almuslimuun aلطaalib markaan jamcinayno waaw iyo nuunaan la xiriirinayna aلطaalibuun ayaan lena zayd markaan jamcinayno waaw iyo nuunaan la xiriirinaynaa azayduun marka waa ereyga lagu jamciyo waawda iyo nuunta markii uu joogo xaalaة rafci wayaa-in wa nuunin fii xaalatay nasbi waاljari wayaa-in wa nuunin fii xaalatay الnasbi waاljari markuu joogo xaalad kordhig ah ama xaalad hoos dhigana waxaa lagu jamciyaa ya iyo nuun ya iyo nuun oo tusaale ahaan almu'minuun markii aanu rabno inaan kor dhigno ama hoos dhigno waxaan leenahay ra'aytu اlmu'miniina booskii waawda waxaa imanaya yaa markaan hoos dhigayno xaraf jaar aanu la xiriirinaynana marartu biاlmu'miniina waxaan ku jamcinaynaa yaa iyo nuun idan marka horta sidaasaa la yidhaahaa jamc اlmudakar asaalim maa jumica biwaawin wa nuunin fii xaalati rafci wa yaa-in wa nuunin fii xaalatay الnasbi waاljari adigaa marka samayn kara jamc اlmudakar asaalim ereyga soo qabso mudakarka ragga ah waaw iyo nuun la xiriiri bis saasuu jamc mudakar saalim aad u samayn kartaa khaalidaad soo qabsan alkhaaliduun raakic soo qabso qof rukuucsan alraakicuun saajid soo qabso qof sujuudsan asaajiduun wahaakada sidaasaa loo sameeyaa jamcu اlmudakar asaalim marka jamcu اlmudakar asaalim xaalatu rafca hadduu joogo waxaan ku godaynaa alwaawu tusaale ahaan qad aflaxa almu'minuuna qad xaqiiqi aflaxa waxaa liibaanay almu'minuuna dadkii mu'miniinta ahaa way liibaaneen hadda almu'minuun waxaanu leenahay waa erey godan maadaama uu yahay faacil faacilna in la godaahay waajib tahay wuu godan yahay haddaad tidhaahid wax godahoo iga muuqda ma jiraan waxaad leeyahay almu'minuun maadaama jamcu اlmudakar asaalim uu yahay maantay waxaa god u ah waawdaasaa god ah see u icraabaynaa marka qad aflaxa almu'minuuna qad waan soo marnay waa xarfu taxqiiq qad xaqiiqe waa xaraf tusinaya taxqiiq wuxuu khaas ku ahaan jiray afcaasha gaar ahaan wuxuu galaa maadiga iyo mudaarica maadigana laba macno u faa'iideyn jiray mudaaricana laba macno u faa'iideyn jiray waan soo qaadanay casharkaas qad xarfu taxqiiq xarfu taxqiiq maxaa loola jeeda waa xaraf faa'iideynaya xaqiijin bimacnaa taxaqaq falaaxu lmu'miniin waxaa dhab ah oo xaqiiqa ah mu'miniintu inay liibaanayaan taxqiiqu aflaxa ficlu maadin aflaxa waa ficil maadi mabniyu calى اlfatxi laa maxala lahu min alicraab kordhigaasaa lagu bineeyey oo lagu dhisay kordhigaasuu u dhashay laa maxala lahu min alicraab almu'minuuna kuu soo haray waa faacilu aflaxa ilaa dadka liibaanay oo liibaanta samaynaya waa iyaga kuwa liibaanta ay ku dhacayso waa iyaga kuwa liibaanta samaynaya waa iyaga oo faacil almu'minuun faacilu aflaxa faacilna daa'iman waa marfuuc wa calaamatu rafci calaamadda aan ku godnay meesha dhan aan u soconno waa intaa wa calaamatu rafci maxaan leenahay alwaawu nawaawdaas marka waa inaad icraabkaaga aada ku muujiso in ay naa'ib ka tahay damadii maxaa yeele shayga markaan godayno maxaa asal u ahaa dama waxa kale waa iska farac waxa kale waa iska farac shayga marka la godaayo dama asal u ah wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idamati waawdana waxay bedel ka tahay kii madaxda ahaa oo asalka ahaayo damadii liannahu jamcu اlmudakar asaalim
waa jamcu mudakar saalim maa naaba fiihi xarfun can xaraka maxaa loola jeedaa maa naaba fiihi xarfun can xaraka xaraf ayaa wuxuu wakiil ka noqday shaqal ayaa loola jeedaa xarafka wakiil ka noqday waa xarafkee waawdan xarakada uu wakiilka ka yahana addama maa naaba fiihi xarfun can xaraka icraabka markaad naxwaha doonayso inaad fahamto waxa aad ku hadlayso icraabka dhuux ulajeedadoodana isweydii maxaa loola jeedaa iska dhihin uun wacalaamatu rafci alwaaw niyaabata can adamati liannahu jamcu mudakar saalim maa naaba fiihi xarfan can xarakati ma aha waa inaad dhuuxdo maxaa loola jeedaa saan maxaa loo yihi saan maxaa loo yihi markaasaad fahmi kartaa naxwaha liannahu jamcu mudakar saalim maa naaba fiihi xarfun can xaraka nuuntanaa soo hartay nuunta qad aflaxa almu'minuuna nuuntaas macnahay ku fadhiso maxay tahy wanuunu ciwadu can الtanwiini fi اlismi اlmufrad maxaa loola jeedaa haddana wanuunu ciwad can الtanwiin fi اlismi اlmufrad ulajeedada waxaa weeye nuuntan qad aflaxa almu'minuun waxay bedel ka tahay laba shaqalkii mufradka ku jiray maxaa yeelay ereygan almu'minuun hadda waa jamc mufradkiisii laba shaqal u lahaa mu'minun uu ahaa mu'minun laba shaqalkaas markii la tuuray ilaa jamca meeshii yimid laba shaqalkaa markii la tuuray bedelkiisii waxaa la keenay nuuntan nuuntu marka macno weynay ku fadhisaa qad aflaxa almu'minuuna macnahay ku fadhisa maxay tahay tanwiintii isimka mufradka ayay iyaduna wakiil ka tahy wanuunu ciwadu can الtanwiini fi اlismi اlmufrad halkaas waxaa noogu dhammaaday icraabkii jamcu mudakar saalim oo jooga fii xaalati rafci waxaan ogaanay in lagu godo waaw idan marka jamcu mudakar saalim tusaalooyinka kalena adiga lagaa rabaa inaad uga qiyaas qaadato jamcu mudakar saalim haddiiba maxalu rafca uu joogo waa in waawdaa la keeno waa laasim markaad leedahay hadda dahaba almusaafiruuna musaafiriintii way tageen haddaad tiraahid dahaba almusaafiriina waa khalad soo ma dahaba almusaafiriina waa khalad almusaafiriin waa faacil hadduu faacil yahay waxaa waajib noqonaya jamcu mudakar saalimna yahay in waaw lagu godo meeshuna waa maxalu rafci aanu taagannahay limaada aan u leenahay maxalu rafci aan taagannahay waa faacilan joogna faacilu faacil marka daa'iman waa laasim meel walba oo in la godo ay laasim tahay jamcu mudakar saalim waa in lagu godo alwaawo waawdaa in lagu godo laga maarmaan lidaalika waxaa khalad noqonaya haddaad tiraa dahaba almusaafiriina waxaad leedahay ereygan waa khalad waa in lagu saxo dahaba almusaafiruuna ayb haddii aad tiraahid ijtahada waxaa dadaalay aلطaalibiina ardaydii way dadaaleen aلطaalibiina ereygaas waxaan leenahay waa khaldan yahay aلطaalibiin limaada uu u khaldan yahay meeshan aلطaalibiin waa jamcu mudakar saalim wuxuuna taagan yahay maxalu rafca maadaama maxalu rafca uu taagan yahay waa in waaw la keeno ya-dani waa khalad اجتahada الطaalibuuna waa inaan idhaaho marka الطaalibuun tusaale ahaan fiiri الtaa'ibuuna الcaabiduuna الxaamiduuna الsaajiduuna الraakicuun maxaa ilaahay subxaanaه wataعaalى jamcu mudakar saalimka ereyada laysugu xijiyey dhammaanna waaw looga dhigay الtaa'ibuuna الcaabiduuna الraakicuuna الsaajiduun الtaa'ibuun maxaa waaw looga dhigay waa mubtada mubtadana waa mansuub ya mubtadana waa marfuuc maxalu rafcu jooga idan ereyadaas oo dhan waa jamcu mudakar saalim oo lagu goday waaw ayb marka waxaan baranaynaa jamcu mudakar saalim habka loo sameeyo iyo canaasirta ama maadooyinka iyo usuusha laga sameeyo jamcu mudakar saalim jamcu mudakar saalim markaan samaynayno waxaan ka samaynaynaa laba cunsur oo keli ah ama laba asal ayaan ka samaynaynaa alcunsur الأول waxaan ka samaynaynaa wax la yihaaho aljaamid alcunsur الثاني waxaan ka samayn karnaa الصفة labadaas shay bisaa jamcu mudakar saalim laga sameeyaa habka loo sameeyana waan barannay oo markii ereygani jamcu uu joogo maxalu rafca waaw iyo nuunan ku jamcinaynaa
haddii uu joogo maxaluljar ama maxalunasbana ya iyo nuunan ku jamcinaynaa saasaan u samaynaynaa labada shay oo laga samayn karana waa aljaamid والصفة الجامد والصفة maxaa loola jeedaa jaamid iyo صifo jaamid iyo صifo maxaa loola jeedaa jaamidaa laga sameeyaa marka lagu leeyahay jamc mudakar saalim jaamid ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa erey hal meel jaamid maxay tahay min aljumuuda laga keenay waa cagsu اlاshtiqaaq jumuud waa erey aan isbedbedel lahayn oo hal meel un taagan ayaa la yidhaha jaamid hal meeluu taagan yahay ereyada carabiga labay u qaybsamaan ereyna waa erey mushtaqa oo isbedbedela ereyna waa erey aan isbedelin oo hal meel iska taagan oo caqiim ahoo madhalo ah madhalo wey hal meeluu taagan yahay wax furuuc ma leh midna waa erey ishtiqaaq leh oo tasaruf leh oo isbedbedeli kara maala ereygan aaalib markaan soo qaadanno aaalib erey wax dalbay aaalib arday wax dalbay oo cilmi dalbay ereyga aaalib wuu isbedbedeli karaa waxaan leenahay wuxuu yeelan karaa ficil maadi dalaba waxbuu dalbay wuxuu yeelan karaa ficil mudaaric yadlubu wuxuu haddana isku bedeli karaa ficil amar udlub wuxuu noqon karaa haddana ism faacil aalib wuxuu noqon karaa masder dalaban ereyga marka sidaa isu bedbedelayo waxaa la yidhaha mushtaqna waa la yidhaha ama sifana waa la yidhaha markuu ismulfaacilka yahay sifa ama ismu mafcuulka uu yahay sifo mushtaqna waa la yidhaha ereyga sidaa isu bedbedeli kara laakiin waxaa jira ereyo kaa cagsi u ahoo hal meel uun kuu soo taaganoo meel labaad aan aqbalayn meel labaad aan aqbalaynin sida ereyga rajul oo kale rajul waa jaamid leanna maxaa yeelay maadi ma lahan mudaaric ma lahan amar ma lahan ismu faacil ma lahan ismu mafcuul ma lahan halkaasuu iskaga qalalay un ereyga hal meel ku qalalay jaamid hadduu isbedbedelana waxaan leenahay waa mushtaq sifo ah sifadu waa nooc mushtaqa ka mida idan marka waxaa laga sameeyaa jaamid iyo sifo jamcu mudakar saalim labadaas jaamidka markaan ka samaynayno maثalا zayd oo kale jaaءa الزayduuna waaw iyo nuunan la ku jamcinayna aan la xiriirinayna jaaءa الزayduuna jaamidka wuxuu iska leeyahay shuruud jaamid markaad ka samaynayso jamc الmudakar الsaalim laabud min shuruudi 5 shuruud shana waa laga maarmaan inaad jaamidka aad ka fiirisid markaa kabacdi ayaad ka samayn kartaa jamc الmudakar الsaalim الsharد الأول waxaa weeye an yakuuna calaman ereyga jaamidku waa inuu yahay calam calam maxaa loola jeedaa waa magaca qofka gaarka ku ah ismu yucayin الmusamى muطلqa calamuhu kajacfari wakhirniqa waqarani wacadani walaaxiqi washadqami wahaylati wawaashiqi wasman ataa wakunyata walaqaba waakhiran da in siwaahu saxiba calam waxaa weeye waa magac hal qof khaas ku ah adiga haddii lagu yihaaho maxmuud maxmuud adigu gaar kugu yahay lakin innaga maxmuudna lama yihaaho soo ma xasan haddii lagu yihaaho adiga xasan uu gaar kugu yahay lakin innaga xasan dhammaanteen ma wada nihin xasan ereyada qofka ku gaarka maxaa la yidhaha calam idan marka jaamidka waa inuu yahay calam sida zayd oo kale maxmuud oo kale xasan oo kale laga samayn kara calam calam waa inuu yahay an yakuuna calama calam waa inuu yahay maxaa baxay marka calamnimo hadda rajul oo kale lagama samayn karo jamcu mudakar saalim lanno maxaa yeeley rajul calamya kulligeen rajul waa wadan hayso maa inta meesha fadhiso hada rajul hada rajul hada rajul waa la dhihi karaa dhammaan lagama samayn karo jamcu mudakar saalim hadduu jaamidku yahay nakiro jaamidku hadduu nakiro yahay lagama samayn karo laazim waxaa shardi ah an yakuuna calaman shardiga labaad limudakerin weliba calamku waa inuu yahay calam rag maxaa la diidan yahay calamkii haweenka haweenku waxay leeyihin jamc u gaara maxaa la yidhaha jamcooda jamcu اlmuanath الsaalim waxa hadda maanta casharkeenu ku saabsan yahay waa jamci ragga ila waxaan ka hadlayno jamc ragga haween lama ogola meeshan lama ogola jamcu mudakar saalim in laga sameeyo haween magaca haween lagama samayn karo an
an yakuuna calaman limudakar waa inuu shardi calamka haweenka lagama samayn karo sida hindo oo kale lagama samayn karo hindo oo kale faaطima oo kale zaynabo oo kale lagama samayn karo zaynabuun ma dhahayno zaynabuun maxaa yeele waxaa isdiidaya waxa aan rabno iyo waxa aad samaynayso waxaan doonayno maxay tahay jamcu mudakar asaalim aan doonayna jamc ragahan anagu doonayna zaynabuun haddaan nihahno muxuu naga noqonaa haween an yakuuna calam limudakar caaqil shardiga saddexaad waa inuu caaqil yahay midkaad wax ka samaynayso wax caqlile waa inuu yahay haddii magacyada xayawaanaadka gaarka ku ah sida awrta oo kale magacay leeyihin soo maa neefka maaragtaahay orgoga oo kale magacuu leeyahay soo maa dadka xoololeyda neef walba magacay ula baxaan sida bini aadamka oo kale soo saas maa neef walba ridii hebla ahayd orgogii hebla ahaa la leeyahy haddii markaa yacni neefkan orgoga ama ratiga magac gaara haddii lagu magacaabo calam uu noqdo jamcu mudakar saalim lagama samayn karo sida shadqam oo kale rati magaciisu ahaan jiray oo nin carab uu lahaan jiray shadqam shadqamuun ma dhahayno maxaa yeele caqli ma leh caaqil ma ah limudakar caaqil caaqil waa inuu yahay shadqam ayaa ku baxay rati magaciisu khaaliyan min taa'i ta'niis waa in haddana taa u ta'niis uu ka maran yahay wax taa u ta'niis leh kama samaynayno jamcu mudakar saalim taa u ta'niis wixii taa u ta'niis leh kama samaynayno sida tusaale ahaan dalxa dalxa hadda waa nin magaciis laakiin taa uu leeyahay soo maaha dalxatu taa ugu dambayso dalxatuun ma dhahayno ma ka samaynayno dalxatuun ma dhahayno ayb wa min atarkiib shardiga ugu dambeeya khaaliyan min taa'i ta'niis wa min atarkiib tarkiib waa inuu ka maran yahay tarkiib maxaa loola jeedaa laba eray oo laysi saaray waa inuusan ahayn oo uusan ka koobnayn hal eray waa inuu yahay laba eray oo laysi saaray kama samayn karno sida tusaale ahaan siiba weyhi oo kale siiba weyhuun ma dhahayno maxaa yeele ereygan siiba weyhi laba eray oo laysku dhejiyey siiba iyo weyhi murakab masji baclabaka oo kale kama samaynayno maxaa yeele waa laba eray oo lays saaray bacla iyo baka labuu ka kooban yahay bacla iyo baka waxaas murakabka ah kama samaynayno shuruuddaa shanta ah waa laga maarmaan markaad jaamid ka samaynayso jamcu lmudakar asaalim an yakuuna calaman limudakarin caaqilin khaaliyan min taa'i ta'niis wa min atarkiib sifadii aan noo soo hartay sifo markaan ka samaynayno jamcu mudakar asaalim sifana hadda waan soo ogaanay waa erey ishtiqaaq leh oo isbedbedeli kara sifo markaan ka samaynayno iyaduna waxaa laga maarmaana an takhdaca lishuruudin sita waa inay u khuduucday u hoggaansanto yacni sifadaasi lix shardi an takuuna sifatan limudakar waa inay tilmaan u tahay rag ilaa waxaan ka hadlayno o dhan waa jamcu mudakar asaalim waxaa baxay sifa limu'anath wixii ah sifooyinka haweenka sifooyin waxaa jira haween un mooye aan ragga lagu tilmaami karin sifada haweenka ay qaataan jamcu mudakar asaalim lagama samayn karo sida sifada ah xaa'id 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 maxay tahay waa sifo haween xaa'id macnaheeda waxaa yani loola jeedaa gabar xaa'ida ah oo xaysha gabar xaysha dee lama dhihi karo rajul xaa'id maya jira rajul xaa'id waa sifo gaar ku ah dumarka idan marka kama samaynayno sifooyinka gaarka ku ah dumarka lagama samayn karo jamcu mudakar saalima ma dhihi karno xaa'iduun annagoo markaas dhehayna xaa'iduun jamcu mudakar saalim uu noo yahay suurtagal ma taha jamcu mudakar saalim uu noo yahay xaa'iduun leanna waxaa kaa hor imanaya jamcu mudakarna waa leedahay xaydna waad sheegtay ma isqabanayso ma isqabanayso ma idan waxaa shardi an takuuna sifatan limudakarin caaqil weli mudakarka mudakar caaqila waa inuu sifo u yahay mudakar maalaa yacqil ah wixii sifo u ah sida farasun laaxiq faras fardaha haleela oo ka daba taga faras laaxiq lama dhihi karo afraas
laaxiquun fardo badan oo fardaha ka daba taga laaxiquun ma dhihi karno annagoo laaxiquun sifo uga dhigayna fardaha maalaayacqilka wixii maalaayacqila lagama samayn karo an takuuna sifatan limudakarin caaqilin laysat min baabi afcali faclaa khaaliya taa waxaa ka horeeya khaaliya min التأniiث sifadu waa inay ka maran tahay khaaliya min taa'i ta'niiث taa'i ta'niiث waa inaysan sifada haddana ku jirin haddii sifadu taa'u ta'niiث ay wadato sida calaamatun calaamatun mid cilmi badan nin cilmi badan calaamatun ta'daas wixii wata lagama samayn karo jamcu mudakar asaalim waxaa kaloo shardi ah laysat min baabi afcali faclaa'a sifadu waa inaysan ku soconin miisaanka afcal faclaa wixii afcal faclaa'a nidaamkaas ku yimaada lagama samayn karo sida axmar xamraa'a axmar muxuu ku jaan go-an yahay afcal faclaa'ana muxuu ku jaan go-an yahay waxaan leeyahay xamraa'a xamraa'ana muxuu ku jaan go-an yahay faclaa'a wixii afcal faclaa'a ku jaan go-an lagama samayn karo axmar xamraa akhdar khadraa lagama samayn karo ereyadaas o dhan axmaruun ma dhahayno aswad sawdaa waa abyad baydaa ereyadaas o dhan lagama samayn karo walaa min baabi faclaani faclaa walaa min baabi faclaani faclaa faclaani faclaana waa inaysan ka mid ahayn faclaani faclaa faclaani faclaa ulajeedada laga leeyahay maxay tahy ereygu hadduu ku jaan go-an yahay ama uu ku wasan yahay faclaan faclaa lagama samayn karo oo maalan mudakarkiisiina faclaan uu ku imanayo haweentiisiina ay faclaa ku imanayso lagama samayn karo tusaale ahaan hadda khadbaan nin caraysan faclaan uu ku jaan go-an yahay haweentana haween caraysan markaan leenahna waxaa la yidhaha khadbaa faclaa uu ku jaan go-an yahay isagana lagama samayn karo faclaan faclaa sida khadbaan khadbaa ma dhihi karno khadbaanuun lianna wuxuu ku jaan go-an yahay faclaan faclaa sida cadshaan nin ooman cadshaa islaan ooman wixii nidaamkaa ku jaan go-naada faclaan faclaa lagama samayn karo jamcu اlmudakar asaalim walaa mima yastawi fiihi اlmudakaru wاlmuؤanaث walaa mima yastawi fiihi اlmudakaru wاlmuؤanaث wax rag iyo dumar ay ku siman yihiinna waa inuusan ahayn bacdu sifaat waxaa jira rag iyo dumar tilmaan ay ku siman yihiin oo raggana lagu tilmaamo dumarkana lagu tilmaamo iyadoo wax farqi ah oo taa u ta'niiثa aan lala xiriirinayn tusaale ahaan ereyga jariix waa qof la dhaawacay wey jariix qof dhaawaca wey la dhaawacay jariixun ninkan waa lagu tilmaamaa waxaa la yidhaha ninka rajulun jariix nin la dhaawacay gabadhiina maxaan leenahay imra'atun jariixun ta u yeeli mayno gabadhii jariixatun ma dhahayno maxaa yele ereyga faciil sarfigaanu ku qaadan doonaa insha allah ereyga faciil bimacnaa mafcuul hadduu yahay waxaa ku siman ragga iyo dumarka ta'da xataa yani dumarka looma yeelo rajulu jariixun imra'atun jariixun rajulu qatiilun imra'atun qatiilun qatiil iyo jariix midna ta looma yeelo xataa haweenka ta looma yeelo ereyada noocaas oo kale ah oon ta'da lala xiriirin walaa talii faariqatan facuula aslan wala lmifcaala walmifciila kadaka mifcala wamaa taliihi talfarqi min dii fashuduudun fiihi sida ibn maalik uu leeyahay raximah اllahu tacaala marka jariix jariixuuna ma dhahayno maxaa yeele waxaan ogaanay waa erey ragga iyo dumarku ay ku siman yihiin qatiilna ma dhahayno qatiiluuna maxaa yeele waa erey ragga iyo dumarku ay ku siman yihiin innaguna maxaan doonaynaa jamcu mudakar asaalim sooma waxaan doonayna almudakar wax u go-ana la rabaa sifo ragga bis u khaas
laakiin wax dumar iyo raggii intaba ay wadaagaan nooma noqon karo jamcu lmudakar saalim. jamcu lmudakar asaalim nooma noqon karo. ay sifadiina lixdaa shardiya shardi ah takuuna sifatan limudakarin caaqilin khaaliyan min taa'i ta'niis laysat min baabi afcali faclaa walaa min baabi faclaani facla walaa mima yastawi fiihi اlmudakaru wاlmu'anahu. ayb marka waxaan ogaanay jaamidkana in loo shardiyo 5 shardi, sifadiina loo shardinaayo 6 shardi. guud ahaan shuruudda haddii la ysku daro waa 11 shardi. 11kaa shardi ayuu iska leeyahay jamcu اlmudakar الsaalim. wa fi اlasmaaءi الkhamsati wa hiya abuuka wa akhuuka wa xamuuka wa fuuka wa duu maalin. wa fi lasmaa'i magacyadana waawdu calaamo way u noqotaa. magacyadaasoo alkhamsati ee 5 ah. wahiya magacyadaa 5 ah abuuka aabbahaawo wa akhuuka walaalkaawo wa xamuuka sodogaagiiwo wa fuuka afkaagiiwo wa duu maalin maal mid u saaxiibow. weli sheekha wuxuu ku dhex jiraa waawda ereyada lagu godo. hal erey aanu soo qaadanay. waawda waxaa lagu godaa 2 erey. jamcu lmudakar saalim ayaan soo sharaxnay oon soo faahfaahinay. qeybta labaad oo la dhihi karo wa calaamatu rafcihi alwaaw waa asmaada loo yaqaano alasmaaء الkhamsa. alasmaaء alkhamsa 5 ism. 5taa ism luga alcarabiya meeshii aad ku aragtid xaalatu rafca markay joogaan. xaalatu rafca markay joogaan maxaan ula jeednaa? tii haddaan soo sharaxnay. waxaan ula jeednaa markii ay joogaan xaalad in la godo ay waajib tahay sida faacil, naa'ib alfaacil, mubtada, khabar, khabaru ina, ereyadaasoo kale mawaadicda ay joogaan. 5tan erey xaalatu rafca hadday joogaan waxaanu leenahay calaamatu rafci alwaaw. waawan ku godayna. 5ta sheekhu kuu tiriyey waa ereyga abuu oo aabba loola jeedo, akhuu walaalkii loola jeedo, xamuu. xamuu alxam yuطlaq calىa aqaaribi الزawj wa aqaaribi الزawjati. alxam waxaa la yidhaha ninka qaraabadiisa. ninkay naagtu markay isqabaan qaraabada dhinaca ninka ka socotana waxaa la yidhaha xam. qaraabada dhinaca haweenka ka socota oo gabadha xaggeeda ka socdana xam waa la yidhaha. labadaba luqa ahaan waa loo isticmaali karaa xam. wa fuuka ereyga fuu ereyga duu duu. waxaa laga maarmaana marka waxaad adiga fiirsataa ereyada hore fiiri. mudaaf ilayhiga ereyga dambe waxba ha fiirin. waa isbedeligaa ereygaas. waa isbedeli karaa. wax kale ku iman karaa. adaa wax kale la xiriirin karaa. hadda ereygan abuu maxaa la xiriira? kaaf soo maaha. kaaftaasi shardi ma aha inay mar walbaba daba taagnaato. waxaa dhici kara in lagu yidhaaho jaaءa waxaa yimid abuuhumaa oo meeshii kaafta la keeno damiir kale humaa. labadooda aabbaa yimid. labadan aabbahoodaa yimid. ama jaaءa abuukumaa labadiinan aabbihiinaa yimid. ama la yidhaha jaaءa abuuhum oo hum lala xiriiriyo. marka wixii doonaa lala xiriirin karaa oo shuruud gaarana loo xiri doono. akhuuga waa sidaas oo kale. akhuuda fiirso laakiin kaaftaasi shardi ma ah. waxyaalo kale lala xiriirin karaa. akhuukumaa, akhuuhum, akhuuhumaa waa la dhihi karaa. xamuuka sidoo kale, fuuka sidoo kale, duu maalin sidoo kale. marka ereyga hore uun iska fiiri. ayb marka jaaءa abuu alasmaaء الkhamsa 5tan isim waxaanu nidhi xaalatu rafca markay joogaan waxaa la leeyahay wa calaamatu rafcihi alwaaw. tusaale ahaan jaaءa abuuka waxaa yimid aabbaha. waxaanu icraabinaa jaaءa ficil maadi mabniyun calى اlfatxi laa maxala lahu min alicraab. abuuka abuuda soo qaado. kaafta gooni aanu icraabayna. abuu faacilu jaaءa ilaa qofkii yimidu faacilna daa'iman waa marfuucun. wa calaamatu rafcihi
calaamadda lagu godana maxay tahay meeshaan u socno halkaas wey wa calaamatu rafci alwaaw waawdaas waa inaad caddayso meesha ay wakiilka ka tahay niyaabatan can idamati liannahu min alasmaaءi الkhamsati maa naaba fiihi xarfun can xaraka xarafa wuxuu ka naa'ib noqday shaqal waxaa noo soo haray kaafta abuuka adiga aabbahaagii yaa yimid aabbahaagii kaagii kiinii koodii kiisii keennii ereyadaas meeshay soo galaan waa mudaaf iyo mudaafu ilayhi horaan usoo qaadanay abuu mudaaf walkaafu mudaafun ilayhi mabniyun calى اlfatxi fii maxali jarin kaaftu waa mudaafu ilayhi kordhigan way u dhalatay laakiin maxalka hoose maxaa uga jira hoos dhig leanna mudaaf ilayhi daa'iman waa majruur hoos dhigii meeshuu ku qarsan yahay akhuuka dahaba akhuuka walaalkaa waa tegey dahaba akhuuka walaalkaa wuu tegey dahaba akhuuka sidii kan aan usoo icraabno wax isbedela ma lahan hal xabo icraabkiisa haddaad fahamto kuwa kalena waa inaad fahamto dahaba ficil maadi mabniyun calى اlfatxi laa maxala lahu min alicraab akhuu faacilu dahaba waa qofkii tegey marfuucu wacalaamatu rafcihi alwaawu niyaabata can idamati liannahu min alasmaaءi الkhamsa maa naaba fiihi xarfu can xaraka akhuu mudaaf walkaafu mudaafu ilayhi mabniyun calى اlfatxi fii maxali jarin dahaba akhuuka xamuuka xamuuka saafara xamuuka sodogaagii wuu safray saafara xamuuka saafara ficil maadi mabniyun calى اlfatxi laa maxala lahu min alicraab xamuu faacilu saafara faacilna waa marfuucu calaamatu rafci calaamadda lagu godo maxay tahay alwaawu niyaabatan can idama liannahu min alasmaaءi الkhamsa maa naaba fiihi xarfu can xaraka xamuu mudaaf walkaafu mudaafu ilayhi mabniyun calى اlfatxi fii maxali jari fuuka jaaءa waxaa yimid fuuka afkaagii haddii afkaagii yaa yimid see afka u yimid maxaa loola jeeda afkaagii yaa yimid luga alcarabiya majaazaad fara badan ay leedahay yacni jaaءa fuuka afkaagii yaa yimid ulajeedada waxaa weeye balaganaa wa jaaءanaa kalaamuka macnaha maqaasidda laga ley maxay tahay hadalkaagii uuna soo gaaray so annaga markaan luqadeenna ka hadlayno qofka ma nidhaahdo warni qofka markuu hadal badan yahay iska hadlo warniga waa af dheer tahay adiga waa af dheerta waxaa loola jeedaa faruurihiisa dhaadheer iyo afkiisa ya maxaa loola jeedaa hadalka soo maaha maala yacnigaaga iska badan niyo waa af dheer tahay luqa alcarabiya waa sidii oo kale jaaءa fuuka afkaagiyaa yimid ma waxaa loola jeedaa afkiia intuu soo go-ay uu keligii isagoo socda afkiisii noo yimid ya warniyo maalmahana hadalkaagii waa na soo gaaray ayaa loola jeedaa hadalkaagii ayaa maalmaha na soo gaaray jaaءa fuuka jaaءa ficil maadi mabniyun calى اlfatxi laa maxala lahu min alicraab fuu faacilu jaaءa marfuucu wacalaamatu rafcihi alwaawu نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة ما ناب فيه حرف عن حركة فو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر ذو مال ذو مال ربح وحا ربحي ذو مال قفك مالك صاحبك مالكيسي فائده كهل وفائده الربح ذو مال مالك قفك صاحبك وربحي وفائده الربح فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ذو فاعل الربح مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة ما ناب فيه حرف عن حركة ذو مضاف مال مضاف إليه أي سيدي هو مئة سقص عنه مال مركز درجتي مبني على الفتح في محل جر 100 يا isbedelada dhacaya u fiirso kii hore mabniyun calى اfatx maxaan u lehaynay waa damiir damiirna daa'iman waa mebni daa'iman waa mebni mucrab ma aha damiirka laakiin ereygan maalin mabniyun ma dhihi kartid ereyada mucrabka la icraabuu ka mid yahay walidaalika waxaad leedahay si caadi aad isaga icraabi duu mudaaf maalin mudaafun ilayhi
mudaaf ilayhina marfuuc miya majruur uu hoos dhigan yahay wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fii aakhirih kaa hoos dhigayaaba isaga muuqdaba kaasaasaad u icraabi icraabka waa maskax la aruuriyey waa wax caqliga bini aadamka waafaqsan wax kowkab kale yacni laga hadlayo ama caqliga bini aadamka ka weyn ma aha naxwuhu waa wax caqliga bini aadamka si fiican uu u fahmi karo oo caqliga bini aadamka la socan karo laakiin caqligu la socan karo waa alcaqlu saliim caqliga caafimaadka qaba oo wax fahmayo qof khaflo iska saaran oo caqliguba ka qunfulan yahay ama juhdiba aan bixinaynin oo qunfulba iska saaran ama markii horeba issoo qunfulayo qunful weyn isku soo dhejiyayo markuu meeshan imanayo yimido war waxaan ma fahmi kartid meesha iska xaadir un ilaahay khasaa'intiisu way fara badan tahay ilaahay waxaa la doonay malo wanaagsan aad ilaahay ka malaysato ana cinda danni cabdii bi ilaahay xadiis qudsi ku yiri addoonkaygu siduu ii malaysanayaan u noqdaa marka xusnu danni billaah la imaa dadaalna samee caqligaagana ha iska qunfuline furfur caqliga waxa laguu sheegayo fiiri ku feker waxbaad baranood fahmi markaas duu mudaaf maalin way hoos dhigantaa hoos dhigi maadaama aad u jeedid maalin mudaaf ilay majruur dhe calaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirih iska muuqda ayb marka shantaas isim calaamatu rafci alwaaw laakin bishuruud asmaa اlkhamsa shantan isim markaan leenahay calaamatu rafci alwaaw waxaa shardi ah shuruud shan ahoo caam ahoo guud ahaanba loo shardinayo saddex shardi oo khaasaa jira sideeday isku noqonayo sideeddaa shardi waa laga maarmaan an takhdaca alasmaaء الkhamsa lishuruudi ثamaaniya waa inay u hoggaansanto asmaaء الkhamsa shuruud sideeda shan caama iyo saddex khaas ah الsharد الأول an takuuna mufrada hadda soo ma aragtid mufrad inay ku socoto abuuka jaa abuuka aabbayaal badanaa yimid miyaan nidhi ya waxa dhan mufraday ku socdaan akhuuka walaalka xamuu fuu duu mufrad waa inay ku socoto an takuuna mufrada mukabara shardiga labaad wey mukabara maxaa loola jeedaa waa inaan la yarayn oo sideeda loo weyneeyo haddii la yareeyo abuuka oo la yidhaha tusaale ahaan jaaءa ubayuka aabbahaagii yaraa ayaa yimid dee xukunkii waa isbedeli markaas waxaan leenahay jaaءa ficil maadi ubayu faacilu jaaءa marfuuc calaamatu rafci lamatu daahiratu fii aakhirih marka wuxuu geli qolooyinkii lamada lagu godi jiray haddii la yareeyo musaqar laga dhigo oo la yidhaha jaaءa ubayuka ayb an takuuna mufrada mukabara shardiga saddexaad mudaafa waa in la adiifiyo wax uun waa in loo daba dhigo hadda fiiri abuuka kaaftaasaa loo adiifiyey abuu mudaaf walkaaf mudaaf ilayhi mid walba waxaanu leeyahay hebel mudaaf ilayhi an takuuna mudaafa waxaa kaloo shardi ah ligayri yaai lmutakalimi ligayri yaai lmutakalimi laga ilaaliyo yaa mutakalim qofku si gaar u hadlayo naftiisa oo inaan ya-daas aan lala xiriirin oon loo adiifin haddii ya mutakalim loo adiifiyo isbedelaa ku imaanayo masala markaan idhaaho jaa abi ayaa yimid abi faacilu jaa marfuuc calaamatu rafci marka maxaa leenaha damatun muqadaratun calaa maa yaa mutakalim oo markuu galaa qolooyinkii lagu godi jiray damada liannahu waxaa isbedelay idaafadii marba haddii ya loo adiifiyey xukunkii waa isbedelahay marka ma dhahayno calaamatu rafcihi alwaaw shardiga shanaad an laa yadkhula calayha yaau nasabi yaau nasab waa inaan la gelin waa ya shidan oo qofka marka la nisbaynayo qofka waxbaa loo nisbeeyaa waa lishiddati mulaasamatihi lishay qofka hadduu shayga laasimo muddo dheer waa loo nisbeeyaa naxwaha qofku hadduu muddo dheer ku soo dhex jiray maxaan leenahay fulaanu naxwiyun ya shidanaan la xiriirinna hebel waa nin naxwi ah oo aad naxwaha loo nisbeeyey magaalada muqdisho muddo dheer haddaad deganayd ereyga muqdisho waxaan la xiriirinaynaa ya shidan fulaan
xasan maqdishiy xasan waa nin reer muqdisho ah reer muqdisho loo nisbeeyey haddii magaalada maka muddo dheer aad deganayd waxaan leenahay xasanu makiyun xasan waa nin reer makaad ah yaa u nasab marka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa ya shidan oo ereyga aakhirkiisa lala xiriiriyo sababta loola xiriirinaya ay tahay qofku inuu shaygaas muddo dheer uu ku dhex jiray isaga nisbe ma ah marka yaa u nasab waa inaan la gelin waa shardi haddii maalan akhuukadii yaa u nasab la geliyo la yidhaha akhawiyun mid walaal loo nisbeeyey akhawiyun dee xukunkii waa isbedelay marka maxaan leenaha calaamatu rafci ضمة ظاهرة في آخره جاء خوي علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره شنتها شرط وعام waxaan idhi أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم أن لا يدخل عليها ياء النصب saddex shardiya waxaa jira khaas ah shuruud gaara duu waxaa loo shardiyaa laba shardiya khaas ku ah الشharد الأول أن تكون بمعنى صاaحب duuda macnaheedu waa inuu noqdo saaxib sida inagu aan ku macnaynay rabixa waxaa ribxay duu maalin maal qof u saaxiib ah ereyga saaxiib waa inay ku timaado duu kaleo luqa alcarabiya waxaa jirta macno kale ku timaada min daka duu in suxbatan abaana wاlfamu xayثu اlmiimu minhu baana abun akhun xamun kadaka wahanu wanaqsu fi hada اlأkhiiri axsanu sida meesha ibnu maalik uu leeyahy raximah اllahu tacala أن تكuنa بمعنىa صاaحبin maxaa baxay duu waxaa jirta بمعنى الذي ku timaado لغة طي duu بمعنى الذي ku timaado haddii duuda بمعنى الذي ay ku timaado sida jaaءa duu qaama jaaءa waxaa yimid duu ay ladii qofkii qaamo istaagay qofkii istaagay yaa yimid jaaءa duu qaama jaaءa duu تacalama النaحوa jaaءa waxaa yimid duu ay ladii qofkii tacalama naxwa naxwaha bartay ayaa yimid duudaas maxay tahay bimacna اladi duuda hadday bimacna اladi noqoto waaba mabniyun waxayna ka mid tahay min asmaaءi اlmawsuulaat oo markaa waxay gelayba baab kaleo nidaamkan annaga aan ku hadlaynaba way ka baxsantay الشharد الثاني oo duuda ku khaas ah أn takuuna mudaafaة lismi jinsin أn takuuna mudaafaة lismi jinsin waa in duuda loo adiifiyo lala xiriiriyo ismu jinsi ismu jinsi maxaa loola jeedaa erey macno guud dhalinaya macno guud xambaarsan hadda duu maalin markaan leenahay duuda maxaa loo adiifiyey maal dee maalku soo ma aha wax ereyo badan xambaarsan ama macaani badan xambaarsan maalka maxaa soo gelaya qalabkanna hor yaallo waa maal soo ma wax lagu duubayo jawaalka ama mobeelka aan haysanno maalkuu ka mid yahay soo ma qamiiska iyo macawista aad haysto waa maal lacagta jaabka ugu jirta waa maal maal imise sheeyaa soo gelaysa adduunka waxa yaaloo dhan maal soo maha marka ereygaa macnaha guud xambaarsan waa in loo adiifiyo duuda maxaa la diiday in la yidhaaho jaaءa duu zaydin zayd qofu saaxiibaa yimid dee zaydka waxaa weeye waxaan oo dhan zayd miya waa macno khaasa soo maha macno khaasa hadduu yahay maba loo adiifin karaba maba lala xiriirin karaba marka labadaa shardina waxay khaas ku yihiin duu ereygan fuuka fuu isagana waxaa khaas ku ah hal shardi muxuu yahay an laa yadkhula calayha miim ereyga fuu waa inaan miim la gelin haddii miim la geliyo la yidhaha jaaءa famuka afkaagiyaa yimid marka xukunku waa isbedelaya oo xukunku markaa wuxuu noqonaya famuka famu faacilu jaaءa marfuuc calaamatu rafcihi ضمة ظاahiraة في آkhirih ضمة ظاahiraة في آkhirih isbedel ay maraya marka halkaa maxaan ka qaadanay laba shardi oo duu khaas ku ah iyo hal shardi oo fuu khaas ku ah iyo shuruuddii shantahayd oo caamka ahayd aan ka bilowna an takuuna mufrada mukabara an takuuna mufrada markaan leeynay maxaa ku baxay hadday jamc noqoto tusaale ahaan asmaa khamsa waa inay mufrad sida mufrad abuu akhuu haddii jamc laga dhigo maalan aabbaha oo la yidhaha jaaءa aabaa'uka aabbayaasha aabaa'uka markaasee u craabina jaaءa ficil maadi mabniy calى الfatxi laa maxala lahu min alcraab aabaa'u faacilu jaaءa marfuuc calaamatu rafci haye damatuna lena leanna markaa muxuu noqday
اسم مفرد مو نقض يا جمع تكسير جمع تكسير نقض جمع تكسير محل وجود جري ضمة طيب مركا شروط عام كذا وحيد أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم لا يدخل عليها ياء النصب إيوه سدح شرطي وخاص كاي سديد دا شرطي وأنا يؤهق عن سمان الأسماء الخمسة مركز كبعدي أي وحل ليه كرا وعلامة رفعه الواو وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال هذا تسالوين وحن سميني جاء أبوك هذا سؤاله وحي من دونه مركي مرحلة السؤال شأن قارنه إن جاء دي لقى بدله وفعل كلا تساله لقوه كانوا أبوك ذن كافت هذا لا حريرينا وحك لا حريري ولو هذا إعراب تقف كي إسكا قنفلناي أو مال كلو هذا إعراب كودي قدونا مال كلو لو جيد ودي قدونا ومثل هذا جاء أبوك ماشي جاء أبوك أم كم مثالني وهذا عكرا إن لقوا يراه تعلم أبونا النحو إعراب النجورة تعلم أبونا أبهن وحبرتي النحو أبهن نحوه وبرتي إن لقوا يدي أدي عكرت هذا مركز إسكاكم في الليل أدلق حريد ومسكاك كاحريد وهذه دونتها وتعلم أنا اللي يمشي جن أبونا أبوك يا هذا نسكو جين ولا إيش جاي أولي أبوك مية دول تجنان اللغة العربية ولا أبوك مية سير بتهدو القرآن كنا أولا تعامشه سير بتهدو الحديث كنا أولا تعامشه نحوها تكون تطبيقس نحوها إلا وحال دوني مربوع قرآن كي مركز جوته إنها تكون تطبيقسه فقهي إنها تكون تطبيقسه أحاديثتي إنها تكون تطبيقسه أبوك وأمي اللغة العربية ولا سيمر كل شقيسان ربطها واللغة العربية وكل شقيساني ده هل مال إسكيف فريسته هدو مركا وحسوسن وأنا حسوسنينا tusaalooyinka tusaale u eg oo xukunkiisa aad soo qaadatay oo shaatigii uun laga soo bedelay ayaa lagu dhihi doonaa haye ka shaqee shaatigii bisa laga soo bedeli doonaa inta kale macnihii waa isku meeshii waa inaad fahamto in shaatigii lagu bedelay wuxuu meeshii la taagan yahay icraabkii lagugu sheegana aad xukunka dusha ka saartay allah subxaanahu wa tacaala